bilowna dad Somali ah oo dhowr ah ayaa la sheegay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Sweden. sidoo kale tiradada ayaa la sheegay inay xanuunkaasi u dhinteen. haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa Cabdullaahi Maxamed Shadoor oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ka wareysatay Soomaalida uu xanuunkan ku dhacay. Falastiin, cudurka COVID-19 wadanka Sweden saameyn weyn ayuu runtii aad ugu yeeshay marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta oo ku dhacayo aad u sii badanayso haday tahay wadooyinkii iyo iskooladii iyo waxyaabihii nolosha bilaadanka oo dhan oo runtii aad u soo wada xirxirmatay. cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay 2272 qof oo dad gaaraya. waxaa cudurka u dhintay 36 qofood. waxaa intensive care-ka ama emergency-ga ugu jira 115 qof oo dad gaarayo. waa mahadsan tahay. tiro ma laga hayaa Soomaalida oo xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay? Falastiin, tiro dhab ah ilaa iyo hadda ma aysan sameynin hay-adaha caafimaadka dadka Soomaalida cudurka oo ku dhacay Soomaalida ee wadanka Sweden ku nool. laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 gaaraya 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay. marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay waa dad sidee ah da ahaan iyo xaalad ahaanba? runtii dadka cudurka hadda ugu badan oo ku dhacay waa dadka waaweyn ka bilow 40 sano jirada ilaa iyo wixii kasii waaweyn. way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay laakiin ma ku badna. cudurka wuxuu aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelanayaa dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da'dooda ay waaweyn tahay. maxaa keenay mudane in Soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka Sweden? Falastiin, waxaa keenay Soomaalida runtii waxa ay dhibaato badan ka qabaan guryo xumada ka jirta wadanka Sweden oo dhan. guryaha oo runtii aad ugu yar faamilada Soomaalida. waxaa laga yaabaa faamiliga Soomaaliga inuu gaarayo 8 qof ama 10 qof ay ku nool yihiin 3 qol ama 2 qol. runtii qof ka mid ah cudurka haddii uu ku dhacana waxay u fududahay in cudurka dadka faamiligaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco. marka taas ayaa keenaysa in guriga la'aanta Sweden ka jirta ay tahay dhibaatada ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah cudurkan aad ugu sii bato. ka mas'uuliyiin ahaan gaar ahaan adiga maxaa fariin ah oo aad Soomaalida reer Sweden u diraysaa? waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo ummadda Soomaaliyeed ee Sweden ku nool. fadlan dhageyso hay-adaha gargaarka informationka ay bixinayaan. dhagaha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan. waa runtii muhiim in ay dhageystaan. dad badan ayaa waxay dhahayaan cudurkan ma nagu dhici karo iyo Soomaalida ma ku dhacayo ama dadka Islaamka ma ku dhacayo. waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano qof madow ah ama qof cadaan ah. fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig oo ilaali faamiligaaga iyo dadka kaleeto oo maalin kasta aad la kulmayso inaan cudurka ana gaarsiin. kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shadoor oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. waxa uu warramay wariyahayga Falastiin Axmed Imaan.